kaloo toddobaadkan xubnaha aan idinkugu helno barnaamijkeena ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee ku-meel gaarka cabdiweli oo isagu mar uu booqasho ku tegay maamul goboleedkaasi puntland isagu halkaasi ku guddoonsiiyey arday ka qalin jebisay magaalada gaalkacyo macad ku yaala waa kan barnaamijkaasi oo runtii ah mid aad u xiiso badan. ra-iisul wasaaraha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta soo gabagabeeyay booqasho uu ku joogay deegaanada Puntland iyo Galmudug. ra-iisul wasaaraha ayaa maanta waxa uu shahaadooyin guddoonsiiyay intii aanu ka dhoofin magaalada gaalkacyo arday ka qalin jebisay goorso ku saabsanayd hoggaanka wanaagsan iyo xalinta khilaafaadka. ardaydani oo gaaraysa ilaa 60 arday ayaa muddo waxa tababar siinayay aqoon-yahano uu ka mid yahay Suldaan Cabdisalaam Suldaan Maxamuud waxaana maanta ay ra-iisul wasaaraha u jeediyeen khudbado iyo hadallo ku saabsan waxyaabihii ay soo barteen iyo waxyaabaha ay qabanayaan. dhalinyaradan oo ka tirsan dhalinyarada ay ka talinta ee gobolka Mudug ayaa waxa ay khudbado kala duwan ra-iisul wasaaraha uga jeediyeen shaqooyinka ay qabteen. anfac cali cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada ay ka talinta ayaa habsuugaaneed waxay ugu soo bandhigtay wafdiga ra-iisul wasaaraha waxyaabaha ay qabtaan iyo waxay u asaasan yihiin. dhalinyarada Mudug joogta oo midowga doonaysa macaanka ee wadanimo la haydgaliyay maankooda mintida ayabaan hay si ay midowga ku keenaan mishaarna lama siiyo anagu magac ma doonayna mana lihin ujeed gaar ah iyo milan siyaasadeed macna darafka diyaarada midkeen kuma adeegayo maslaxada dadkeena rabnaa inay macaanaato midugtaan rabnaa inuu qabsado magaca Soomaaliya. waxaan kale u taaganahay baa waxay tahay guusha gobolka Mudug baan u nahay garabyadeeda iyo gurmad baan waxaan ugu jirnaa nabad inay gaarto gaban mayno oo gaalkacya dhaxalgalkeeni ah gudan mayno aar oo gadaal waxuma eegayno gardarrada ma yeelniyo xumaan nalala soo galay guntimo isku xiran baan naho horumar goobayo gogashana waxaa loo fidsaday gacal mideyntiisa garabkana waxaa laga rabaa maamul garabkeena. Professor Cabdiweli Maxamed Cali ayaa intaasi kadib waxa uu khudbad u jeediyay dhalinyarada isagoo kula dardaarmay inay dardar galiyaan howlaha wadaniyada leh oo ay wadaan. hadal hadduu qiimo leeyahayna anfac baan ugu tiri in maanta dhalinyaradu ay u istaagaan iyagoo ah madaxdii mustaqbalka inay maaragtay u istaagaan yani horumarka magaalada iyo nabadeynteeda iyo say uga hadleen baday waxa birtay gabadha wiilkan uga hadlay aad baan ugu faraxsanahay runtii aad baan loo dhiirigelinaysaa noona maaragtay qiiro zaa'id ah ayay nagu soo awoortay marka insha Allah waa maasantihiin dadaalkiina wada waa gaari doontaan Soomaaliya waa cusub u bariyay idina jirkaas cusub oo Soomaaliya yani fursad ku noqon doontaan insha Allah khayr badan rajaynayo waa maasantihiin. ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu intaasi kadib shahaadooyinkii guddoonsiiyay dhalinyaradaasi iyagoo u sagootiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. dadweyne aad u fara badan ayaa ka qayb qaatay sagootinta ra-iisul wasaaraha iyo soo dhaweyntiisaba waxaana uu garoonka diyaaradaha intii uu ku sugnaa uu saxaafadda uga warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu ku sugnaa deegaanada Puntland iyo Galmudug iyo muhiimadda safarkiisa. aad ugu faraxsanahay inaan imaado soo booqdo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug maantana waxa weeye ama baxaniga wafdigeygii runtii ujeedaduna waxay ahayd in la soo iskaashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyadana gurubay nagu dhamaatay aniga wafdigeena hadda xamar baan u soconaa hadii la yiraahdo marka aad baan ugu faraxsanahay in dadku soo aragno xaaladda ka jirta dhanka bini'aadanimada dhanka abaaraha dhanka yani horumarinta wixii looga baahan yahay tacliinta waxbarashada ceelasha biyaha iyo wixii la mid ah marka dadka waan soo booqanay qorshadeedii gurubay nagu dhamaatay madaxdii baan is aragnay waan is wareysanay marka aad baan ugu faraxsanahay inaan aragno runtii dhabta ay ka jirto dalka marka intaas waxaan kusoo koobayaa idinkana aad baan kaga mahadnaqayaa hawsha fiican aad ka haysaan dalka. mudan ra-iisul wasaare safarkaagii Puntland aad ku timid heshiisyo ayaa dowladda Puntland oo kala la gasheen heshiisyadaasi iyo ballanqaadyadii aad sameyseen ma fulayaan oo dowladda federaalka iyo waxyaabaha aad ka ballanqaadeen hadda Puntland maxaa ugu waaweynaa qoraal iyadoo nuqul ah ayuu jiraa heshiiskaasi anagoo hadda heshiis haddaan aan fulinaynin oo sandiyaar naga inaan gallo inaanu saameyno fulino dee marka hore ma galeen marka anagu wixii awoodayada waa iska xilsaarayna inay heshiiskaas ay fulaan haddii la yiraahdo.
guud ahaan socdaaladii ra'iisul wasaaraha ee gobolkani ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay jawi aad u heersareeya waxaana xusid mudan in dadweyne aad u fara badan ay maalinimadii shalayta ka qayb qaateen soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha.